abbaaro sagaalkii iyo qadar daqiiqada ah ayaa waxaa qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lala eegtay bar control oo laga ilaaliyo madaxtooyada oo ku taala isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho ka hor inta uusan qaraxa dhicin ayaa waxaa isqabsaday rasaas la sheegay in ciidamada ammaanka ay ku eryanayeen gaariga oo si xoog ah ku jiray isgoyska dabka ee magaalada muqdisho oo keentay in dadkii ka agdhawaa goobta in ay ka cararaan taasi oo yareysay xaddiga khasaaraha qaraxa maadaama goobtu ay aad u saxmad badnayd qaraxa ayaa saameyn ku yeeshay dhismooyinka ku yaala agagaarka goobta uu ka dhacay iyo tiro gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo isugu jira gawaarida raaxada iyo bajaaj kuwaasi oo doonayay in ay ka gudbaan barta control waxaana inta badan darawaladii kaxeynayay ay ka carareen gaadiidkooda kadib markii ay ka war heleen dhawaqa rasaas cod dheer iyo sawaxan qaylo digniin ah ay la socotay ilaa 10 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la gaarsiiyay isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kuwaasi oo ku soo dhaawacmay qaraxii saakay lala eegtay bar control oo ku taala isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho isbitaalka Daarushifa ayaa la gaarsiiyay ilaa 4 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan iyo 1 ruux oo meyd ah hal qof oo qaba dhaawac ayaa isna la gaarsiiyay isbitaalka Digfir ee magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale isbitaalka Madiina la geeyay dhaawacyada ilaa 5 ruux sida ay noo sheegeen saraakiisha caafimaadka isbitaalka Madiina ilaa 5 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalkan kuwaasi oo ku soo dhaawacmay qaraxii saakay waa berigii ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho dadka la soo gaarsiiyay isbitaalkan ayaa qaba dhaawacyo kala duwan mid kamid ah ayaa waxa dhaawac uu ka soo gaaray dhanka madaxa halka mid kalena qaybo kamid ah jirkiisa uu dab qabsaday isla markaana uu gubtay sidoo kale waxaa jira dad qaba dhaawacyo fudfudud oo la soo gaarsiiyay isbitaalkan mid kamid ah dadkii ku soo dhaawacmay qaraxa ayaa Shabeelle uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo waliba waxa indhihiisa uu ku arkay magacaygu waa Yaasiin Saciid horta ani waa hurday kowde markaa soo kacayna waxaa arkay daaqada istaaga oo guriga markaa istaaga waxaa arkay gaariga oo jiifa intuusan qaraxin ka hor gaarigii oo jiifa meeshii lagu kala caray gawaarida dhan waa laga degay marka hal askari ayaa meesha joogay in uu dhintay in kala ma sheegi karo anigu marka isma lahayn ba gaariga qaraxay waa gaariyaal isku dhacayna isdhahay marka kadib qaraxa dhacay gurigii dhana mugdi ila naqdayba aniga waa soo baxay hoos u soo degay waa suuxayba meesha niyo meer igu dambeeyay gaariga wuxuu aaday gaarigan kaaribta ma arkino kaaribta oo waan ka dheeraa laakiin waa jiifay nooha ku xiga ma jiro kuwa noohada ku xigaan kuwa oo kale ahaayeen mid kamid ah dhaqaatiirta ku howlaneed daaweynta dhaawacyada ayaa Shabeelle uga warbixiyay noocyada ay isugu jiraan dadka ku soo dhaawacmay qaraxa dhaawacyada saakasta kala soo gaarsiiyay waxay ahaayeen ilaa iyo 5 bukaan 4 kamid ah dhaawacyo kala duwan ay qabeen qaarkood qalin ay u baahnaayeen hal kamid ah isagoo meedaas taagna loo keenay haddana xaaladoodu degan tahay ma sha Allah dhaawacyadana loo keenay waxay u badnaayeen dhaawacyo firir wax ka soo gaareen kuwa caloosha wax ka soo gaareen iyo kuwa xabadka wax ka soo gaareen iyo madaxa ay u badnaayeen bukaanka waxa u daran hal bukaan oo caloosha firir ka soo galay iyo xabadka oo u baaday tarajo iyo in qalin loo sameeyo laba madaxa wax ka soo gaareen labadoodana wax oo jab iyo ma jiraan waa iska stable bukaan stable waaye war ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 8 gaadiid ah iyo 9 mooto bajaaj ah in uu burburiyay qaraxa iyadoo sidoo kale warka ka soo baxay booliska lagu sheegay dhaawaca 7 qof Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier